waxaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose soo gaaray qaybtii u horeysay ee ka tirsan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxaana markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo halka ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Jubbaland Mudane Maxamed Warsame Darwiish taliyaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Jubbaland waxa ugu horeyn la hadlay wasiirka arrimaha bulshada Jubbaland Macalin Maxamed Ibraahim oo asagu dhankiisa soo dhaweeyay ciidamadan ka socda dalka Itoobiya ee maanta soo gaaray Kismaayo dimaashadii noo ku faraxsan inaanta baan matataasho wadaan gasburan in badan oo idin sugeyn waxaan isleenahay annagu waxaan qabnaa inaan isleenahay waxaan aaminsanahay in idinka iyo annaga aan isku khadnahay baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay inaad dalkiinni qayb ka mid ay maateen waxaan aaminsanahay annagana insha allahu tacaala si hufan inaan idinla shaqayn doono wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamed Warsame Darwiish oo garoonka diyaaradaha kula hadlay ciidamadan ayaa dhankiisa sheegay inay ciidamadan ka qayb qaadan doonaan howlgalka webiga Jubba ugu faraxsanahay maantay munaasabadan aan ku soo dhaweynayna ciidamada AMISOM ee Itoobiya annagu waxaan leenahay wixii hadal ahaa waa intii ay odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiinta naga horeysay ciidamada ay yiraahdeen munaasabadan waa soo dhaweyn taliya tasfaaye ciidankiisa ku soo dhaweynayna wixii waro kalena meesheeda iyo goobteedana la tagi doono ciidamada AMISOM ee Itoobiya waxaan leenahay gurigeena labaad ku soo dhawaada halkaana waxa idinku diyaara ciidamadii dawladda Jubbaland iyo ciidamadii SNA ee Soomaaliya xogga dalka Soomaaliyeed oo la gali doono soo dhaweynta ka bacdi waxaan rabaa annagu waa idin soo dhaweynay waa idin la shaqaynaynaa programkana markii ay degisto dhamaato bilaaban doono taliyaha asagu ciidamadan hogaaminayay oo lagu magacaabo Tasfaay ayaa dhankiisa ka hadlay sababaha ay maanta u imaadeen Kismaayo. The very reason why we are here today is to continue our mission of celebrating Somalia from anti-peace terrorists of Al-Shabaab elements in order to put our hands together with our friends, Kenyan Defense Force, Burundian Defense Force, as well as Somalian National Army units and the best support of all peacekeeping of the others. This is because we have unshakable or unconfessable belief that we can successfully achieve on our common mission due to the presence of our common interest in countering of Al-Shabaab with our united hands. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa halkaas ka hadlay maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan waxaan soo dhaweynaynaa ciidamada AMISOM gaar ahaan dawladda Itoobiya ciidanka ka socda aad baan soo dhaweynaynaa ciidamada AMISOM gaar ahaan Itoobiya dhulkan Jubbaland meesha ugu horreysay ka howlgalaan maahan waqooyiga Jubbaland oo dhan ka howlgalhayeen si fiican bay uga soo howlgaleen waxa ugu dambeeyay baar dheer oo 23 bishii 7 la xoreeyay عدو ولا قبطي وأنا حسوستا إذا كماشي قبطي وإذا كماشي فديو أكرر كون هجومنا هي وحنا لنا يكسر دوالة وكسماي ماشي تنادين فرحات وكسر دوالة صور دوين فعل وكسر دوالة الشعب كي هجومنا هي وضيعش دقن كردن وغير كيف كان سراكيش عندما أمسوا بحال هذا السنة إذا في جبلان وأركي كان الشعب كله جبلان وربع على مقوين دوت الصور دوالة جبلان كليه كمان البشر وحكول بشان صومالي ودن waxaan ku timaadeen waxa weeye rabitaanka shacabka ku timaadeen waxaan filayaa imaashihiinaan maanta waxay soo afjari doontaa cadowgii Jubbaland uu lahaa oo dhan oo shacabku ugu horeeyay way soo afjarmayaan si kastaba ha yeeshee ciidamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo 2 maalin ka hor dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo asagoo safarro uu ku kala bixiyay dalka Itoobiya iyo Kenya ku sheegay inay bilaaban doonaan howlgalka webiga Jubba Axmed Caydi Diiriye Somali Channel magaalada Kismaayo